Pablo Escobar oo ahaa ninkii ay dunidu u taqaanay boqorka daroogada waxaa lacagtii u qarsoonayd ee aan la ogeyn lagu qiyaasay in ka badan 500 bilyan oo dollar waxaas lacagtaas cadadka intaas leeg leh markii dambe la helay lacag 18 milyan gaaraysa sida uu sheegay wiil adeer u yahay Pablo Escobar oo asagu helay lacagtaas oo bac ku jirta oo gaaraysa 18 milyan oo dollar taasoo gidaar lagu qariyay mid ka mid ah guryihii adeerkii Pablo Escobar inankan uu Pablo Escobar adeerka u ahaa ayaa u sheegay warbaahinta Colombia inay tani ahayd markii ugu horeysay ee uu lacag ka dhaxelo guryihii iyo goobihii gabaadka u ahaa adeerkiis halkaas oo uu ku kaydin jiray hantidiisa isagoo ka qarinaya laamaha ammaanku inaysan ogaan waxaa kale uu sheegay in xilligaas uu halkaas ka helay qalin dahab ah telefoon satellite-ka ku shaqeeya makiinada teebka ah ee wax lagu qoro iyo cajalada duuban wuxuuna Escobar taariikhda ka galay oo uu noqday mid ka mid ah raggii ugu caansanaa ee ka ganacsan jiray daroogada siiba maandooriyaha loo yaqaan cocaine-ta bartamihii 70-meeyadii ayay ahayd xilligii uu soo bilaabay shaqada kadib markii uu magaalada Medellin Cartel uu ka aasaasay warshad uu ugu magac daray markii dambe Medellin Cartel taasoo noqotay warshadii ugu weyneed ee soo saarta daroogada cocaine-ta waxayna warshadaasi lahayd beer weyn oo lagu beero cocaine-ta oo ilaa iyo waqtigan faa'iidada ay sanadkiiba soo saarta lagu qiyaasay 20 bilyan oo dollar waxaana xilligaasi Pablo ganacsigan ku weheliyay oo kula jiray rag xigta ah oo la baxay walaalaha EOCA oo kala ahaa John David George Luz Fabio kuwaas oo ka caawin jiray maareynta iyo waliba tahriibinta cocaine-ta marka dibadda loo rarayo isaga ayaana shirkadaasi madax ka noqday waxayna shirkadu xooga saari jirtay gudbinta iibinta iyo soo saarista maandooriyahan cocaine-ta waxayna warshadiisu xilligaasi noqotay warshadii ugu horeysay ee ganacsiga daroogada cocaine-ta gaarsiisa wadanka Mareykanka asagoo bil walba si qarsoodi ah ku galin jiray Mareykanka darooga cocaine ah oo tiro badan oo gaaraysa 70 tan ilaa 80 tan waxaana bartamihii 80-meeyadii shirkadii Escobar Cartel ay soo xareyn jirtay 420 milyan oo dollar toddobaadkii taasoo u dhiganta qiyaastii 22 bilyan oo dollar sanadkiiba waana tii markii dambe ka dhigtay Escobar mid ka mid ah dadka ugu qanisan adduunka waxa uu galay kaalinta toddobaad ee 10 qof ee ugu taajirsan adduunka qiimeyntii ay sameysay majalada caanka ah ee Forbes waxa uu ka soo muuqday liiska bilyaneerada 7 sano oo xiriir ah sanadii 2009 wiil uu dhalay Pablo Escobar oo lagu magacaabo Juan Pablo oo hadda se loo yaqaano Sebastian Marcon ayaa isaga oo ka sheekeynaya sida uu noqday xaalku kadib wuxuu yiri waxaas oo hanti ah haddana qoyskii boqorkii daroogada wuxuu gaaray markii dambe heerkii ugu adkaa waxayna muddo badan ku noolaayeen hoy buuraley ah oo ku yiilay magaalada Medellin xilligaas oo dawladda Colombia iyo sirdoonka si ayaduba ku raad joogeen soo qabashadiisa waxaana intii lagu guda jiray raadintiisa la sheegay inuu gubay lacag gaaraysa 2 milyan oo dollar si uu dhaxanta uga celiyo diirimaadna uga dhigo gabadhiisii yareyd oo la ildarneyd qabowgii darnaa ee ka jiray buuraleydaas waxaa kaloo la sheegay in Pablo Escobar ay u suurtoobi weyday inuu si dhaqso ah u dhaqo lacagtii badneyd uu haystay si uu isticmaalo sida uu ku soo warramay walaalkii wadada kaliya ee Escobar u furnayd ee uu ku ilaalin karayay hantidiisa waxay ahayd inuu dhulka hoostiisa ku aaso ama gidaarada uu ku qariyo wuxuu kaloo buugiisii xasuus qorka ahaa ku qoray in waxyaabihii ugu adkaa ee madax xanuunka ku riday ay ahayd sidoo uu qarin lahaa lacagtaas tirada badan waxa uuna buugiisa ku yiri si aan taa uga baxo waxaan sameeyay nidaam aan ugu magac daray Kelatis kaasoo xidhmooyin yar oo lacagta ka mid ah lagu qarin jiray darbiyada guryaha iyo waliba dhulka hoose waxaana mararka qaar jiri jiray ilaa 5 milyan oo dollar oo xidhmo lacageed ah in lagu qariyo hal guri ama goob la yaab ma leh oo tani meelahan lagu qariyo oo dhami ma ahayn had iyo jeer meelaha la isku haleyn jiray in lagu xafido lacagaha inkastoo ay jireen warbixino qaar oo sheegayay in lacagtaas oo xidhmo ah oo la duuduubay la gelin jiray foostooyin caaga sida qarsoon ee uu Pablo ku kaydsan jiray hantidiisa waxaase tan iyo markii uu ku dhintay rasaaseyn ku dhexmartay kooxdiisa iyo booliska sanadii 1993 soo baxday dareen dadweyne oo caam ah kaasoo lagu raadinayo meesha lagu aasay hantidiisa waana midkii ku riixday wiilkii uu dhalay ee Pablo Escobar inuu ka mid noqdo dadkaas xusul duubka ugu jira inuu wax ka helo hantida aabihiisa balaayinta ahayd Roberto Pablo Escobar oo markii uu yaraa ka badbaaday rasaastii ay ku geeriyootay hooyadii markii dambana ku soo koray dalka Ingiriiska waxa soo tababaray oo gacanta ku dhigay sirdoonka MI6ka oo fadhigiisu ahaa dalka Colombia waxaana markii dambe loo diray UK si uu uga fogaado fursad kasta oo burcadii Cartel ay ku afduuban karaysay mana uusan aqoon aabihii dhalay ilaa uu ka gaaray 20-yadii markii uu dhintay ninkii aabihiis u matelayay oo ka tirsanaa sirdoonka MI6 waxa uu siiyay qoraal kood ah oo ay ku jiraan dhammaan xogihii la xiriiray sida loo heli karo malaayiintaas lacagta ah ee uu kaydiyay Escobar Pablo Escobar ayaa waagaas kaalinta toddobaad ka galay 10 qof ee ugu hantida badan adduunka qiimeyntii uu sameeyay wargeyska caanka ah ee Forbes waxaana marka la eego dhinaca bini'aadanimada Pablo uu ka qabtay
oo dadka ka caawiyay dhinacyo badan oo ay tusaale u yihiin mashruucyo badan oo uu hirgeliyay sida inuu dhisay garoomo ciyaar ah asagoo sidoo kalena dadka saboolka ah ku caawin jiray. Lacagtaasina waxay sababtay in Pablo Escobar loogu magac daro lana siiyo naanaysta ah Robin Hood oo micnaheedu tahay qofka lacagta dadka hantida leh ka dhaca si uu ugu deeqo dadka saboolka ah. waxaan halkaas uga kordhay sumcad iyo weliba jacaylka ay dadka taagta daran u qaadeen taasoo ka saaciday in sanadii 1982 Pablo ka mid noqdo xubin ka tirsan xildhibaanada dalka Colombia loona xil saaray mashruucyada dhisidda garoomada kubadda cagta iyo weliba taakulaynta dadka saboolka ah. waxa uuna qayb ka ahaa xisbigii Luis Carlos Galán ee lagu magacaabi jiray liberaalka. kadibna 2 sano oo xilka hayay dawladda Mareykanka oo kaashanaysa dawladda Colombia ayaa hal dhinac uga soo wada jeestay siyaasadda Escobar iyo weliba qadiyadiisa uu rabay inuu u tartamo xilka madaxweynenimo ee dalka Colombia. wasiirkii cadaaladda ee Colombia Rodrigo Lara ayaa cambaarayn iyo weliba mooshin xilka qaadis ah ka diyaariyay Escobar taasoo dhalisay in Pablo uu waayay booskii xildhibaannimo. Pablo Escobar wanaagii uu qabtay intii uu xilka hayay ma aysan ka caawin inuu ku daboolo wajigiisa labaad. Pablo Escobar waxa uu lahaa halku dhigii uu ku leyn jiray xubnaha ka tirsan dawladda iyo weliba dhigiisa kula xifaaltama ganacsiga kookaynta taasoo ahayd Plata Plomo oo la micno ah macdan iyo laaluush ama hoggaan iyo xabad. arrintaas oo ay u dheereed dagaal ba'an oo kula jiray warshadii uu xifaaltanka kula jiray ee Cali Cartel taasoo kula tartami jirtay ganacsiga daroogooyinka. dadka uu Pablo Escobar sida aadka u beegsan jiray waxaa ka mid ah xubnaha dawladda u shaqeeya booliska iyo weliba dadka kale ee tuugada ka soo horjeeda. waa barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.